بسم الله الرحمن الرحيم ومر kale iyo dooqii labaad ama optionkii labaad ee internetku nagu soo gaadhay kii hore waxaan soo sheegnay inuu internetka nagu soo gaari jiray internetkeeni markuu kan yahay inuu nagu soo gaari jiray wax loo yaqaan ISP ama internet service provider oo inoo keeni jiray internet service provider-ku inoo keeni jiray modem-tiina la oran jiray DSL oo hadda inta badan xoog loo isticmaalay DSL-ka line baa la soconayay marka hadda uma baahnin option-kaasi aad looma isticmaalo option-ka labaad aynu aadka loo isticmaalo waxa weeye hadda inta dambe available-ka ka ah adduunka ama suuqa waxa loo yaqaanaa hub antenna la yiraahdo access point bay kugu soo xidhiidhinayaan shirkadda ISP ama sidoo kale waxa loo yaqaanaa customer premises equipment CPE commonly waa terminology-ga loo isticmaalo inta badan la adeegsado shirkadu waxay leedahay xaafadaha kasta waxay ku leedahay qaybo internetka maxaa la yiraahdaa la isku geeyo oo tower-kaas xaafad kasta waxa loo taagaa xabad antenna ah antennadaasi ayaa la baraa antennadaasi marka antennadii IP-gi aynu soo sheegnay aynu nidhi internetku ka dhex shaqeynaya waa public IP ayaa markaasi antennadan lagu xidhaya oo la odhanaya matalan antennadan waxaad isticmaalaysaa IP-ga 42.38.41 iyo tusaale ahaan 10/24 waxaan marka laynu ka hadli doonaa waxyaabo aad u fara badan weeyaan oo aan hadda ka gaarsiin karin marka gurigeeni kala duwanaa markuu soo gaadho ayaa markaa waxa lagu xidhiidhinaya wireless router-kii yaraa aynu maalintii hore soo aragnay kaasi ayaa markaasi devices-ka kala duwan computer ha noqdo tablet ha noqdo mobile ha noqdo wixii oo dhanba waxay ku wada xidhmayaan shirkad maxaa loo yaqaanaa router-kaasi guriga inoo yaala taa markaynu ka tagno waxaynu kale ku xidhan karnaa gurigeena dhexdeeda wixii dhammaan aynu adeegyada inuga baahannahay oo hadda waxa soo baxday talaagadaha guriga inoo yaalo oo kale matalan waxaynu ku kaydsano ayaa lafteeda IP la siinaya oo ay ku shaqeynaysaa IP based ama internet protocol marka aan internet protocol-ki ku noqdo qaybtii maadaama oo shirkadu ay nasiisay waa waxay naga karaysa by the way waxa loo yaqaano public IP-gu waa waxay naga kareynayso marka IP-gaagaasi shirkadu waxay u garanaysaa inay hebel adigoo yaasiina ayaa isticmaalaya yaasiin lacagtu bixiyay waa imisa tusaale ahaan $20 buu bixiyaa bishii $20 iyaga bandwidth intee leeg baan soo deynaa tusaale ahaan bala leeyahay $20 qiimay ugu taagan tahay $30 qofkii bixiyaa qiimay ugu taagan tahay $40 qofkii bixiyaa qiimay ugu taagan tahay oo aad uguma xidhnay anigu shirkadaha isgaarsiinta inta badan laakiin waxa jiraya waxa soo baxaysa marka wax la ogaanaya qof kastaaba baahidiisa ayuu iibsanaya hadduu intaa ka bato oo matalan awal laba qof guriga ku isticmaali jireen internetka waxa laga yaabaa inuu bandwidth yaro kooban ku habboonaa matalan haddii numberkii uu bato usersku oo ay laba qof oo kale kusoo biiraan waxa laga yaabaa qiimihii ku shuban jiray qiimo ka badan buu ku shubanaya marka sideeba ugu fiican lacagtaana looga faa'iidaa plus customer-kuna internet ku hela waa in mar walba suuqii baa xukumaya shirkadaha isgaarsiintuna suuqay ku tartamayaan beriga hore lacag fara badan baa internetka lagu soo gashan jiray iminkana lacag jaban baa lagu soo gashadaa kanina waa habka labaad markaa kani faa'iido daru leeyahay guriga dhexdiisa markaad joogto ma internet isticmaalaysa ka waran markaad banaanka guriga joogtid option-kaasi ka saddexaad baynu ka dhigaynaa ama option-kiina saddexaad aynu internetka kaga hadlayno aan ku laabto waa inagii IP-yada laba u qaybiyey public IP iyo private IP public IP-gu wuxuu noqonayaa baynu nidhi internetka ka dhex shaqeynaya waa sidii tusaale ahaan meel madaxtooye oo kale ka soo qaad ama meel very secure oo amnigeeda la ilaalinayo waxaad imanaysaa adiga oo wata ID-gaagii ama ballan ku socda waxaad leedahay markaasi waxaan ahay hebel baan ahay cidaana waan u socdaa ID-gaagii iyo information-kaagii oo dhan waa laga reebayaa ID cusub baa lagu siinaya ID-ga cusub marka lagu siiyo ID-gaasaad meesha dhexdeeda ku maraysa qof bilaa ID-gaasi ma joogi karo taa macnaheedu waxa weeyaan ISP-gu waxay kaa kiraysaa waa IP-gan IP-gaagii waxaa dhici karta haddii cid kale la siiyo inaanu kuu shaqaynin waxaa sidaas la mid ah dhacda in IP-gaagii hadduu qaldamo oo switch-kaagani matalan u reset garoobo ama uu ciladi ku dhacdo inuu IP-gii aad xiriiri kari weydaan
guriga dhexdiisa maxaad ku isticmaalaysaa waa private IP aad u fara badan baad ku dhex isticmaalaysaa waa habkeenii labaad inta